معناه waxaan ka wadaa ducadan waxa la akhristaa qof kasto qof jecel qofka uu jecel yahay marka uu ka safrayo tusaale ahaan caruurtaada markaad ka safraysid odaygaagii markaad ka safraysid odaygu markuu xaaskiisa ka safrayo qof kasta oo qof jecel marka uu ka tegayo oo ay ilmaynayaan oo laysa sogootinayo oo garoonka laysku dhawaynayo ama marka waxa weeyaan laxdadii ugu dambaysay iyo embiriqsigii ugu dambaysay dadka isjecel ay waxa weeyaan kala tegayaan oo gaari kala raacayaan ama diyaarad kala raacayaan ama markaasi doon iyo markab ay kala raacayaan ducadan ayaa la akhristaa especially waxa akhrinaya qofka ka tegaya cidda uu jeclaa Allahu akbar ducadan inta aanan ku taabsiinin ama aanan kuu sheegin ilaahay dartii waxaan kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka share garaysid loofta u badisid sidoo kalena 10 jeer koobi linki taabatid asxaabtaadana aad u dirtid commentigana aad waa halkii ina bahalkiiya ducada haddaba maxay tahay ducada waxaad odhanaysaa marka aad ka tegaysid dadka ehelkaaga ah ama dadka aad adduunka ugu jeceshahay famil ubad asxaab kulli waxaad odhanaysaa astawdicukumullah 3 jeer astawdicukumullah astawdicukumullah astawdicukumullahu alladii laa yatiicu wadaa'ica intaasaad odhanaysaa waa duco cajiib ah waa duco fudud waa duco waxa weeye qalbi taabada waa duco qofku markuu ilmaynayo oo dadku jeclaa ka raacayo markaasi maxaa yidhaha ama diyaarad ama gaadhi ama waxa weeye nooc ka mida gaadiid ayaa la rabaa inuu akhriyo uu madaxa uu ka dhunkado dadkii uu jeclaa uu dhabannada uu ka dhunko dadka uu jeclaa biidnillaahi alkariim aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu